bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 26 bisha may sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid a warbixinta Middle East ay lagu daabacay ee ku saabsan masaajidka Al-Aqsa maxay Israa'iil iyo Mareykanka ay ka shaqeynayaan inta xiisadaha ay socdaan kulanka qarsoodiga Imaaraadka Carabta ku dhex maray saraakiil ka tirsan Israa'iil iyo sidoo kale maxamed daxlaan siyaasiga reer Falastiin waa maxay ujeedada iyo arinta ka dambaysa kulankaas Israa'iil oo shaacisay inay balaarisay dagaalka ee Lubnaan ay ka wado Turkiga oo soo saaray rinji cusub oo qarsoodi ah oo lagu talagalay diyaaradaha dagaalka rinjigaasi muxuu yahay muxuuna tarayaa yaana soo saaray waxaan kaloo aan eegi doonaa suuragal ma tahay xilliga nasiinada lagu jiro wada hadallana ay socdaan in dhinac kale dib u qorxo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan sidee ayuuna ruushka isugu ballaarinayaa saameyntiisa marka la eego wadamada qaaradda Afrika soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka ee marcadasho oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barteena YouTube-ka adig iyo asaaga asal waad wadaagtaan arag iyo itaalkiyo inaayana ma dheeride aqoontaad ku dhaaftaa macahadu naafic online waxa ay ku diyaarisay barashada higaada carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka quraanka kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda macahadu naafic litahfiidh alqur'aan wa culumihi marka la isku soo noqdo wanaagsan waxaan ku hormarayaa sida warbaahinta Al Jazeera ay baahisay hay'adaha warbaahinta Israa'iilna laga soo xigtay madaxa hay'adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shinbet ama Shabaag loo yaqaano David Zini ayaa kulan wuxuu dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta oo kula yeeshay siyaasiga Falastiiniga ah ee Maxamed Daxlaan lagu magacaabo Maxamed Daxlaan waxa uu ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee ururka Fatah wuxuu horey u soo noqday madaxii hay'adda ammaanka ee marinka Gaza wuxuuna sanado badan ka hor isaga cararay gudaha dalka Falastiin ama dhulka Falastiiniyiinta isagoo tan iyo markaasi ku sugnaa dalkiisu taga Imaaraadka Carabta wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu caansan ee ururka Fatah sida wararka lagu sheegay kulankan oo ka dhacay dalkiisu taga Imaaraadka Carabta wuxuu dhacay xilli uu David Zini booqasho ku tagay magaalada Abu Dhabi oo caasimadda Imaaraadka ah warbixintu waxaa sidoo kale lagu xusay in Maxamed Daxlaan iyo saraakiil ka tirsan Israa'iil ee dhowr jeer ay kulmeen iyo xitaa kuwa Ameerikaana waxaana loo arkaa mid ka mid ah dadka laga yaabo inuu door weyn u ka qaato maamulka iyo amniga marinka Gaza lana doonayo inuu marinka Gaza uu hogaamiyo dagaalka marka uu idlaado inkastoo aanay jirin wax qorshe rasmi ah oo arintaasi ah oo lagu dhawaaqay ilaa iminka dhanka kalena safiirka Israa'iil u fadhiya Imaaraadka Carabta Yossi Shelay ayaa waxa uu sheegay in Daxlaan uu leeyahay aragti ka duwan tan dad badan ay leeyihiin marka la eego marinka Gaza waxaan intaas ku daray waxa aan ka maqalnay ilaa aan ku kalsoonahay waxay ku tilmaameen inuusan xiiseyneynin in dib uu ugu laabto marinka Gaza sidoo kalena aragti ahaan uu ka duwan yahay hogaamiyaasha kale hadalkan ayaa muujinaya Maxamed Daxlaan laga yaabo inuusan dooneynin in si toos ah uu dib ugu laabto marinka Gaza laakiin tan iyo dagaalka markii uu bilowday mas'uuliyiin kala duwan oo saraakiisha Israa'iil iyo sirdoonkaaba ayaa la kulmayay inkastoo jawaab rasmi aanan lahayn waxaana lagu warramayaa in la doonayo in laga dhaadhiciyo inuu noqdo hogaanka cusub ee Falastiiniyiinta Maxamed Daxlaan ma jiro wax war oo ka soo baxay marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo macluumaadka ay baahinayso wax walba oo ka soo kordhana waan kula wadaagi doonaa aan ku raaciyo warbixin lagu daabacay wargeyska Middle East Eye warbixinta waxa lagu sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay si firfircoon ay kaga shaqeynayaan qorshe la doonayo in lagu joojiyo kaalinta taariikhiga ah ee dowladda Urdun ay ku leedahay maamulka iyo ilaalinta masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus ila kala duwan oo Mareykan Urdun Falastiin daanta galbeed iyo kuwa reer galbeeda iyo xitaa dowladda Carbeed ayaa laga soo xigtay in qorshahan uu taageerayo Jared Kushner oo ah wiilka sodoga u yahay madaxweyne Trump iyo safiirka Mareykanka ee Israa'iil Mike Huckabee ninka lagu magacaabo waxa ay doonayaan in Jordan gabi ahaanba laga faramaroojiyo doorka ay ku leedahay wasaaradda awqaafta ee dowladdaasi Jordan taageerada masaajidka Al-Aqsa ee dhanka amniga iyo waxyaabaha la midka ah waxa la doonaya in la soo afjaro marka hay'adda awqaafta islaamiga ah ee dowladda Jordan iyo taageerada ay bixiso Israa'iil waxay doonaysaa marka arinta lagu guuleysto in iyaga ay dhisaan hay'ad cusub oo maamulaysa masaajid Al-Aqsa masjidka Al-Aqsa waxay doonayaan in loo bedelo waxay ugu yeereen xarumo diimeed oo ay wadaagaan qaybaha kala duwan
ee aaminsan noocyada kala duwan ee diimaha, inkastoo diinta islaamka ay tahay diinta keliya ee xaqa ah. yuhuudda ayaa la sheegay marka in la siin doono xuquuq siman oo iyagana la doonayo inay halkaas ay ku galaan. Waa macbadkii mar walba ay ku fekerayeen inay masaajidka al-aqsa ay ka dhisaan. israa'iiliyiintu waxaa kaloo ay doonayaan si rasmi ah in loogu ogolaan doono kooxaha yuhuudda inay halkaas salaad ay ku dukadaan gudaha masaajidka al-aqsa. israa'iil waxaa kaloo ay doonaysaa inay saameyn ay ku yeelan doonto magacaabidda imaamyada, dadka khudbadaha jeedinaya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta sarsare ee masaajidka. waana sababta hadda dowladda Jordan sida wargeyska uu sheegay looga doonayo in laga qaado ee doorka ay ku leedahay maamulka masaajidka. sidoo kale Israa'iil waxaa la sheegay inay doonayso inay dib ay u eegto ama ay ogolaan doonto mawaadiicda khudbadaha lagu soo qaadanayo, yacni way tafatiri doonaan oo mawduuca maadaama imaamkii iyaga ay keeneen, dadka khudbadaha jeedinayana iyaga ay keeneen, waxaa kaloo ay doonayaan inay tafatiraan mawaadiicda lasoo qaadanayo, lagana reebi doono wax kasta oo anti ah ama kasoo horjeeda Israa'iil. la garay Israa'iil muxuu Maraykanka doonayaa? sida warbixinta wargeyska Middle East ay lagu sheegay, laba mas'uul oo Amerikaan ayaa laga soo xigtay in Washington ay diyaarinayso warqad qeexaysa mustaqbalka iyo siday u arkaan masaajid al-Aqsa. sida ay sheegeen marka labada ilwareed ee warbixinta laga soo xigtay, maamulka madaxweyne Trump wuxuu doonayaa masaajid al-Aqsa in laga qaado aqoonsiga gaar ahaaneed ee ah yacni inay tahay goob ee islaamka oo keliya ay leeyihiin gacantan ay ku haynayaan. Maraykanka marka wuxuu doonayaa goobtaasi in loo bedelo goob dalxiis oo caalami ah, laga bedelaba waxaan hadda Israa'iil ay ku fekerayaan iyo islaamka oo idil in laga qaado ayay doonayaan. waxaa kaloo Maraykanka uu doonayaa goobtaasi in yacni laga dhigo goob ay wadaagaan saddexda diin ee Ibraahimiyadda wax la yiraahdo, yacni ku midaysan ee islaamka, masiixiyadda iyo sidoo kale yuhuuddaba. waa sida Maraykanka uu doonayo. waxaa soo baxaya sheeko marka cajiib ah in dalalka carabta lagu wargeliyo qorshaha. ila wareedin reer galbeed ah iyo kuwa ku dhow dowladda Urdun ayaa u sheegay wargeyska Middle East Eye inay arkeen hindiso soo jeedinaya in dalalka carbeed yacni si wareega loogu dhiibo kormeerka masaajidka al-Aqsa. dalalka la sheegay in lagu wargeliyay arrintanna waxaa ka mid ah baa layidhi Imaaraadka, Bahrain, Masar iyo Morocco. yacni maamulka masaajidka al-Aqsa si wareega ayaa loogu dhiibi doonaa, mar Bahrain ayaa maamulaysa, mar Masar, mar Morocco, mar Imaaraadka, sidaas oo kale, yacni qorshe noocaasi ah. intaana waxaa lagu sheegay warbixintan wargeyska Middle East ay macluumaadka u daabacay maanta. Sacuudiga mowqifkiisa muxuu yahay? saddex ilawareed oo kala duwan ayaa laga soo xigtay in Sacuudiga uu ka soo horjeesto qorshahan. Riyaadna weli ay taageersan tahay kaalinta dowladda Urdun ee goobta barakaysan ee Qudus. Sacuudiga iyo Urdunna waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah iyo iskaashi dhow marka arrintan la eego. qorshahan maxaa ka dambeeya? sida wargeyska Middle East ay uu sheegay marka Israa'iil waxay fikradan markii ugu horeysay u soo bandhigtay maamulka madaxweyne Trump ku dhawaad 10 sano ka hor. markii Mike Huckabee uu noqday safiirka Maraykanka ee Israa'iil, wuxuu si joogto ah arrintan uga cadaadinayay maamulka madaxweyne Trump si yacni arrimahan kale inta lagu mashquulsan yahay hawshaana si toos ah loo dhameeyo. ninkan waa siyaasi masiixi ah, wuxuu si weyn u taageeraa Israa'iil iyo deegaameynta Israa'iil ay ka samaysanayso dhulka Falastiiniyiinta. mid ka mid ah marka ilaha ku dhow dowladda Urdun wuxuu yidhi Maraykanka wuxuu ka careysan yahay in Urdun ay markasta ay ku doodo inay leedahay mas'uuliyadda ilaalinta goobaha barakaysan, isla markaana ay ka cabato tallaabooyinka Israa'iil ay qaadayso marka masaajidka al-Aqsa la eego. sidaas waxa lagu leeyahay warbixinta wargeyska Middle East Eye. arrimahan oo idil markaad eegto waxaad moodaa marka inay Israa'iiliyiinta iyo Maraykankaba ay doonayaan wixii ay weligood ku fekerayeen inay yacni dhaqan geliyaan, sidoo kalena ay usii diyaariyaan waxyaabaha iyaga ay aaminsan yihiin. waan arki doonaa macluumaadkan waxa ka soo kordha iyo jawaabta ay ka bixiyaan dowladaha islaamka iyo kuwa carabta warbixinta wargeyska Middle East ay maanta lagu daabacay. sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay, ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Talaada waxay ku dhawaaqeen inay bilaabeen weeraro cusub oo lagu bartilmaameysanayo kaabayaal ay sheegeen inay leeyihiin dhanka dhaqaalaha Xisbullah, kuwaas oo ku yaala meelo kala duwan oo dhanka koonfurta dalka Lubnaan ah. waxaa kaloo ay sheegeen inay soo rideen dhowr diyaaradood oo drones ah oo ay xisbigu adeegsanayeen. deegaanka Natuga iyo deegaano kale ayaa lagu waramayaa in diyaaradahani lagu soo riday. qaar ka mid ah diyaaradahaasi ayaa ku dhacay gudaha Israa'iil deegaanada xoog ay ku haystaan ee ku dhow xadka dalka Lubnaan, taas oo sababtay digniino dhanka amniga ah iyo in meelaha qaar dab uu ka kacay sida wararku ay sheegayaan. hay-adaha difaaca ee Israa'iil dhankooda waxay sheegeen in seeriga digniinta laga maqlay deegaano dhowr ah oo ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka xadka Lubnaan ay la wadaagaan.
xisbullah dhankooda waxay sheegeen inay fuliyeen weeraro culus xilli ay beegsadeen gaadiid dagaal iyo ciidamada israa'il goob ay ku sugnaayeen. ururka sidoo kale waxa ay sheegeen in diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku weerareen gaari military oo ciidamada israa'il ay lahaayeen xilli gawaaridaas ay ku sugnaayeen agagaarka webiga litani deegaanka zawtar al-sharqiya lagu magacaabo. gaarigaasina waxay sheegeen gebi ahaan inay gubeen. telefishinka aljaziira waxaa kaloo ay baahinayaan in agagaarka biyo-xireenka lagu magacaabo qarcuun iyo deegaano kale laga maqlay dhawaaqa qaraxyo xoogan kadib markii israa'il ay halkaas ay duqeynay ka fulisay. waxay arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli la suuragal ay tahay in la isku soo dhowaado heshiisna la gaaro, heshiiskaas oo qaar ka mida dowladaha gobolka ay ka shaqaynayaan. arrinta masaajidka al-aqsa aan raaciya waxaa jira culays weyn oo la saaraya qaar ka mid ah ee dowladaha islaamka. madaxweyne trumpna si cad ayuuba ugu sheegay dowladaha in looga baahan yahay inay ku biiraan heshiiska ibraahimiyadda ama abraham accord. macluumaadkaasi marka laga yimaado cilmi baare u dhasha dalka turkiga ayaa soo saaray walax rinji ah oo cusub oo loogu magacdaray kuurshaad uuj ama 3, taas oo si toosa looga buufin karaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, isla markaana ujeeddadu ay tahay in la yareeyo raadadka ay ka tagaan marka raadaarku uu baarayo ama uu doonayo inuu ogaado diyaaradaha droniska. rinjigan marka waxaa la sheegay diyaaradaha inuu u sahlayo gebi ahaanba raadadkooda inuu baabi'iyo, waana mid hawada gelaya inta duulimaadka lagu guda jiro. mashruucan waxaa hogaaminaya cilmi baare dalka turkiga u dhasha oo yonis inji lagu magacaabo, kaasoo ka shaqeeya shirkad ku takhasustay cilmi baarista teknolojiyadda difaaca. horumarinta walaxdan waxaa la sheegay inay ku qaadatay ku dhowaad 7 sano, waxaana dhowaan lagu soo bandhigay tijaabo farsamo. marka la eego teknolojiyadda kala duwan ee rinjiga qarsoodiga ah ayaa caadiyan inta badan waxaa loo isticmaalaa diyaaradaha raadaarka ka dhuuman karo sida diyaaradda dagaal ee B-22, F-35 iyo kuwa la midka ah. waxaa lagu warramaya hadda inay isticmaaleen turkida marka isku darka dhowr naqshadood kuwaas oo ugu dambeyn soo saaray rinjigan suuragalka ka dhigaya diyaaradaha lagu buufiyo inay aad u adkaato raadaarka inuu ogaado. laakiin kurshaad 3 waxaa loo sameeyey inuu si fudud loogu buufiyo dusha sare ee diyaaradaha sida rinjiga caadiga oo kale, iyadoo aan loo baahnayn wax isbedela oo qaab dhismeedka diyaaradda lagu sameynayo. waana casri markaad eegto sida turkida hadda ay usoo saarayaan arrintan. faa'iidooyinka ugu muhiimsan sida warbixinta lagu sheegay waxaa lagu buufin karayaa dusha sare ee diyaaradda iyadoo aan wax bedel lagu sameynin. ma abuuri doono meelaha qaar inuu saameyn ku yeesho rinjigan, miisaanka culayska waxba kama bedeli doono, diyaaraddana waxba kuma soo kordhin doono, umana baahna dib u habeen qaali ah. kaliya rinjigan midabkii cadaanka ama midabka lamid ay qaadan lahayd ayaa rinjigan laga dhigaya, taas oo awood kale u siinaysa diyaaraddu in raadaarka ay ka dhuumato. waan arki doonaa qodobkaasina waxyaabaha kasoo kordha insha allah. xiisadda ka taagan marinka hormus ayaa sii kordhaysa iyada oo iska horimaad military uu dhex maray Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Iiraan, inkastoo weli dadaalla diblomaasiyadeed ay socdaan. sida warbaahinta dowladda Iiraan ay sheegtay, ugu yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkii ugu dambeeyay ee Mareykanka iyo Israa'iil bay ka fuliyeen agagaarka xeebaha koonfureed ee jasiiradda Laaraag lagu magacaabo ee u dhow marinbiyoodka Hormuz. ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan dhankooda waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo Mareykanka u leeyahay nooca MQ-9 Reaper. dhammaan arrimahan waxay dhaceen 12 saac ee la soo dhaafay. mas-uuliyiinta maamulka Mareykanka ayaa warbaahinta Aljazeera u sheegay in isku dayga weerarka ciidamada Mareykanka ay ku soo beegantay iyadoo aad loogu dhow yahay in heshiis la gaaro oo dowladaha Pakistan, Qatar, Turkiga, Masar iyo dowlado kaleba ay dadaal badan bixinayaan. afhayeenka taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaano ayaa sheegay in Mareykanka uu fuliyo weerarkan oo ku tilmaameen kaliya isdifaac inuu ahaa. khabiir military oo lagu magacaabo Ilyas Hana waxa uu leeyahay labada dhinacba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee marinka Hormuz marka la eego howlgal isdifaacid ah ayay ku sifeeyeen. laakiin marxaladan waxaad moodaa in mar walba dhinaca kalena ay muujinayaan diyaar garow, dowlad kastaana ay ka fikirayso tallaabada ay qaado iyo sida looga jawaabayo. ugu dambeynna waxaa imaan karaya buu yidhi mar qura weerar kedisa inuu dhaco iyada oo la isleeyahay heshiis ayaa la gaaray, marxaladuna way soo idlaatay. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxay sheegeen inay doonayaan in marinka Hormuz si buuxda iyaga u hoos yimaado, taasoo ay ku tilmaameen inay qayb ka tahay madax bannaanida dowladda Iiraan. inkastoo ay jiraan marka iska horimaadyo cusub, haddana General Hana waxa uu leeyahay ma filayo in xaaladdu sidan ay sii ahaan doonto, waxaana suuragal ah in mar walba dagaalka dib loogu laabto. dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa diyaaradaha iyo maraakiibta diyaaradaha ay ka duulaan ee Mareykanka ayaa la diiwaangelinayaa iyada oo lagu arkay agagaarka xeebaha waqooyi galbeed ee badda Arabian Sea loo yaqaano ama agagaarka dalka Cumaan.
dhaqdhaqaaqa maraakiibtan ayaa waxay dib u soo laabteen saacadihii ugu dambeeyey 24kii bishan aan ku guda jirno ayaa la diiwaan geliyey mid ka mid ah maraakiibta Mareykanka oo halkani ku sugan mar kalena waxaa soo baxaya sawirada satellite-ka marka la eego in maraakiibta Mareykanka ah ee diyaaradaha ay ka duulaan dhaqdhaqaaq military ay ka bilaabeen dhanka gobolka waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah waan kula wadaagi doonaa lagsar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada shirkadda Rosoboron Export oo ah shirkadda kaliya ee dowladda Ruushka u qaabilsan dhoofinta hubka ayaa hambalyo u dirtay dalalka qaaradda Afrika marka la eego munaasabadda maalinta Afrika ee 25ka May si loo xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Ruushka iyo Afrika wakiilo ka socda shirkaddan ayaa lagu waramayaa inay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Moscow munaasabadaasina waxaa qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov iyadoo loogu talagalay diblomaasiyiinta qaaradda Afrika maareeyaha guud ee shirkadda Rosoboron Export Alexander Mikhaev ayaa waxa uu sheegay in saaxiibada Ruushka iyo dalalka qaaradda Afrika ee muddada 10 sano saaxiibtinimadoodu ay dhisneed inay ku dhisan tahay kalsooni iyo is-ixtiraam wuxuu xusay Ruushka tan iyo xilligii halgankii madax bannaanida qaaradda Afrika inuu taageero siin jiray dalal badan oo qaaradda Afrika ah laakiin taa beddelkeeda Ruushka saameyn weyn ayuu hadda ku leeyahay wadamo badan oo qaaradda Afrika ku yaala waxaana uu ka iibiyaa noocyada kala duwan ee hubka sidoo kalena waxa ku sugan qaar ka mid ah ciidanka loo yaqaan Wagner dalalka qaaradda Afrika kuwaas oo taageera hadba dalka ay ku sugan yihiin ciidankiisa Afrika hadda waxay tahay qiyaasii 30% dalabaadka caalamiga ee shirkadda Ruushka laga leeyahay halka mashaariicda iskaashiga oo kaliya ay ka badan yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo dollarka Mareykanka kororka xiriirka Ruushka iyo Afrika ayaa sii xoogaystay wixii ka dambeeyay 2019 kulankii magaalada Sochi ka dhacay ee shirkii Afrika iyo Ruushka sidoo kalena shirkii magaalada St. Petersburg 2026 ku dhexmaray Afrika iyo hogaanka ee Ruushka ayaa sii xoojiyay xiriirka labada dhinac laakiin waxa la isweydiinayaa weli ma aragtay shir ay ka qayb galayaan dhammaan madaxda reer galbeedka oo ay la yeelanayaan kaliya hal hogaamiye oo dowladaha qaaradda Afrika ah bal isweydii maxaa keenay in dhammaan madaxdii Afrika ay marna Hindiya u yeerto mar Mareykanka u yeero mar Ruushka u yeero mar Faransiiska u yeero marna dowladaha kale ee qaaradda Yurub aan soo laabanay in ka badan 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa lagu waramayaa Ruushka inuu ku maalgelinayo wadamo badan oo qaaradda Afrika sidoo kalena waxaa la filayaa xiriirkan inuu sii xoogaysto marka la qabanayo shirka saddexaad ee Afrika iyo Ruushka u dhaxeeya dhamaadka sanadkan 2026 arrimahan waxyaabaha ka soo kordhay waan kula wadaagi doonaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh